السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا المدونيسة دودة حسيلوني درده ووروركا والبهاركا iyo markaa maxay ahayd iyo markaa xasilooni darada iyo markaa waswaaska hadday jawaabtaadu haa tahay fadlan dhageyso xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay maa min aadamiyin ila liqalbihi baytaan في أحدهما الملك وفي الآخر الشيطان فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر الله وضع الشيطان منقاره في قلبه ووسوس له. نبي صلى الله عليه وسلم وحليه هذا ما جيره إلا قلبه سا وحاء ليه إلا بقري كم إذا قريها سي واحد دقن ملك قري كم إذا واحد دقن شيطان. qofka hadduu ilaahay subxaanahu watacaala uu xuso alla xasuusto qalbigiisii xasilooni ayuu dareemayaa. shaytaankii soo bixi lahaa ee qalbiga qabsan lahaa ee weerar kusoo qaadi lahaana ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka aamusinaya, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka qarinaya. hadduu qofkii markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu xusi waayo oo ilaahay xasuusan waayo, qofkii waxaa dhacaysa in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku salido shaytaankii, isla markaa waxaa saldhigga qalbigiisii markaa saldhig u noqonaya ama wada qabsanaya shaytaan. mar allala markuu shaytaan qabsadana qofkaasi qalbigiisa waa la leeyahay, qalbigiisa maamulkuma laha, shuqulkuma laha, lugkuma laha. wax allala wixii tala qalbigiisa laga soo goynaya qofkaasi waxaa markaa sabab u noqonaya ama soo go-aaminaya xukunada halkaa kasoo baxaya shaytaan. marka walaal, qalbigaaga ma rabtaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala kuu dejiyo? ma rabtaa inuu ilaahay xasilooni kuu siiyo? ma rabtaa inuu qalbigaaga ilaahay subxaanahu watacaala warwar la-aan u dhigo? hadday jawaabtaadu haa tahay, xuska ilaahay, dikriga ilaahay badi, qur-aanka badi, markaa salaadaha badi oo sunnooyinka badi. baaraka allahu fiikum. ilaahayna bari in badan. haddaad ilaahay subxaanahu watacaala in badan barido, ilaahay subxaanahu watacaala baryada wuu kaa aqbalayaa. marka haddaad doonaysto inuu qalbigaaga qalbi xasiloon uu noqdo, dikriga ilaahay badi. baaraka allahu fiikum. haddaad doonaysto qalbigaaga inuu noqdo qalbi shaytaan uu leeyahay, uu shaytaan markaa maamulana, dikriga ilaahay ilow. haddaad dikriga ilaahay samayso oo ilaahay xusto in badan, qalbigaaga wuxuu noqonayaa mid ilaahay subxaanahu watacaala kuu ilaaliya oo ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa ku jira. hadduu qalbigaaga markaa ilaahay xusi waayana waa dayacmaysaayo, qof qalbigaaga ku ilaaliya ma helaysid. walaal, waxaa dhufays ku ah qalbigaaga, dhufays u ah dikriga ilaahay. haddaad dhufays la-aan doonaysidna, dikriga ilaahay markaa ilow. baaraka allahu fiikum. xuska ilaahay badiya oo dikriga ilaahay badiya oo qalbigaaga noqo qalbigaaga ha noqdo mid ifaya oo nuuraya, ilaahay subxaanahu watacaala raaligeliyey. haddii kalena mid mugdi ah oo markaa quruna oo markaa dulumaad ku jira oo mugdiyo ku jira oo gudcuro ku jira ha noqdo. kadibna adaa arki doona qalbigaaga waxa uu ku farayo inay tahay wax wanaagsan iyo inay tahay wax xun. haddaad doonaysid qalbigaaga inuu wanaag un ku faro, dikriga ilaahay badi oo istikfaarta badi. haddaad doonaysid qalbigaaga inuu noqdo qalbi xunna, ilaahay dikrigiisa iyo xeradiisa markaa ka furo. aniga waxaan kugula talinayaa waxa wanaagsan oo dikriga ilaahay subxaanahu watacaala haddaad badiso, noloshoo dhan baa agtaada imanaysa. ilaahay baa raali kaa noqonaya. ilaahay hadduu raali kaa noqdana macid kalead u baahan tahay. fadlan ka faa'iidayso, sheergale una gudbiyo walaalada. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.